على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إلهي بمهد سبحانه وتعالى ما أنت أو مالين سنينة سجالك بيش الرجب سنة كنا فربقول تضبيع فرتك تاريخ ذي هجري يكون بيجان سجالي لبعتنك بيش اللي بيتمنى الله بكون يشان يلا بعتنك هلك واحد نكسو تشيدين إن باق كسابسن تاجيريستا أقوسك جمهورية الصوماليلان أنا وعلماء جمهورية الصوماليلان باقني waxa uu ku saabsan yahay taageerada aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo ah culimada dalka la aqoonsaday ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu halkan ku muujinaynaa mowqifkayga ku aadan aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu xaqiijinaynaa in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dawlad jirta shaqeynaysa la nabad iyo hay'ado dhisan kuwaas oo buuxiyay shuruudihii dawladnimo qodobka koobaad waxaanu u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu furay waxaanu ugu mahadnaqaynaa oo aanu ku bogaadinaynaa inuu furay albaabkii ictiraafka walina dadaal ugu jiro sidii uu sii ballaadhin lahaa aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka labaad waxay culimada Jamhuuriyadda Soomaaliland taageerayaan horumarka iyo aqoonsiga u soo kordhay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo culimadu dadka Soomaaliland bay kamid yihiin wax kasta oo wanaagsan oo Soomaaliland u soo kordhana culimada Soomaaliland hadaan nahay waanu taageeraynaa qodobka saddexaad waxaanu ugu baaqaynaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland in ay xoojiyaan amniga nabadgelyada iyo wadajirka kana dheeraadaan wax kasta oo hadalla ah oo ku saabsan oo keeni kara khilaaf awalan ilaahay baa mahadle باقي علماء قيب كمل علماء الصوماليلان هل كان لجوء شديد ومقاشين يقضب بدي يسوي شديد وحرائنا يا وعن حريق وسط كحريقة يا إن الصوماليلان أي تهاي دل دولة له علماء له سيدا أوجد ما شرته علماء kale oo meel kale joogta oo halkan culimo ah culimada koonfureed ee hadashay waxay culimo yihiin Soomaalida ay la nool yihiin ay culimo iyagay matalaan halkan waxa jooga culimada Soomaaliland iyagayna matalaan waxay inta badan ku soo celcelinayeen waa kufri waa gaalnimo waxaan leenahay miyaad noo sharxaysaan kufriga iyo gaalnimada waxa lagu gaaloobo miyaad noo sharxaysaan waanu naqaanaa waanu leenahay culimadeedii iyo dadkeedii way noo joogaan maxaa kufriya maxaa lagu gaaloobaa intaba waan naqaanaa walaalayaal si ay doodaba u soo godo Soomaaliya culimadeeda waxgaradkeeda si ay doodaba u soo godo waxa idinku xidhan keena cilaaqaadkaad sheegaysaan waa taadiideen markaad iswaafajin kari weydeen Turkiga iyo Yahuudda markaad iswaafajin kari weydeen ee xaggan ay timid ayaad leedihiin waa kufriya gaalnimo ma taas ayaa markaa diina waxaan leenahay weer diinta iyo aayaadka yaan laga duwin halka ay leeyihiin oo cidda siyaasadda gacanta u haysana ha u hayso wuxuu baan leenahay waxaan maanta halkan isku nimay annagoo culimadii magaalada ka mid ah in Jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah inaanu taageerno oo aanu ayidno oonu ka hadalno mowqifkayaga ku aadan mawduuca madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha dibadda waxaynu u dirnay ictiraaf halkan culimadii baa ka hadashay afar qodob baan raacinayaa oo kooban ugu horreyn waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland oo baaqa u jeedinayna ay tahay diintiinana ilaashada dalkiinana ilaashada dawladdiinana ilaashada saddexdaa qodob waxaan farayaa shacabka reer Soomaaliland meelaha kale laga qaylinaya aqoonsiga Soomaaliland laga qaylinaya waxaan leenahay wax badihiyaada oo caruurtu ay garanayso in la isku gabaar gurdeeyo maaha ictiraafka iyo aqoonsiga Soomaaliland waxay ula siman tahay dawladaha caalamka ula siman tahay